waxaan salaamayaa in allaale inta halka isugu timi waa mid uma amxayto sheegi karo waad badan tihiin qodobka labaad aad iyo aad baan u faraxsanahay marka waxaan ka yaabayaa inaan maxaytay dad badan ilaawo inta isugu timi waa aad iyo aad waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan for example meel haddaan ka soo qaado qolada media oo ugu horeysiinaya oo ka mid yahay shiine gruubada dibadda ka yimi garaad yuusuf garaad Saleebaan xaawo oo runtii aanu townay aad iyo aad aanu townay runtii sida uu sheegay jaranku sidii sheegay ma soo fasaxneen mar qura inaga soo dustay haddana waxaan jeclahay inaan hore u sii kaxayno dabcan qiimo weyn bay ku lahayd halkaas runtii annagu gaar baanu isku ahayn waanu townay runtii waa townay waxaan u mahad celinayaa in allaale inta maxay tahay in allaale intii ka soo hawsha tan ka soo qayb gashay inta maamushay dhalinyarada community-ga SCS ba ama Somali Community Service SCS aad baan ugu mahad celinayaa waxaan ku faraxsanahay intan oo wada Soomaali ah oo isugu timi waxaan maqli jiray meelaha ama ka maqla ama hadii la tago community reer Puntland kuwii Somaliland kuwii Jubaland kuwii Highland mar haday maanta Jarmal community-gi maxay tahay Jarmal dalka Jarmalka ay halkan oo gudoomiye leeyihiin oo guddi midaysan leeyihiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ku dardaarmaynaa sida inaad ku sii wadaan waxaanu kale oo u sheegaynaa qolyaha kale ee dalalka kala jooga iyaguna inay sidaas leeg noqdaan hadalkii intaan oran lahaa waa la yidhi runtii waxaan aniga yahay mahadnaq aan afkayga idinku mahadnaqo inaan idin sheego farxadda aan aad u faraxsanahay waxaan kale idin sheegayaa waxaan ballan qaadaynaa inaanu idinku badbadanno oo ama wasiir ha ahaato ama maxay tahay madaxweyne ku-xigeen ha ahaato ama ra'iisul baarlamaan ha ahaato kolley inta Puntland aan wakiilka ka nahay inay dhulka soo maraan oo idin yimaadaan oo iskiin baraan oo idin mahad celiyaan oo idinka warramaan dhulkii waa ballan qaadaynaa haddii aan idhi waxaan kala ballan qaadaynaa inaanu madaxweynaha iyo madaxda kale aan ka imi inaanu salaandi ka gaarsiino soona takhino inuu idin yimaado waliba waxaan ballan qaadaynaa haddii aan idhi waa kula talinaynaa inuu Jarmalka idinku yimaado Jarmal waa dad isku xidhan priority bay kala yihiin meelaha kale runtii marka aan hadda waayo yani Soomaalinimada ay isku duuban yihiin waa priority haddii aan su'aalo yar ka jawaabo oo hormariyo federaalka iyo Puntland isma hayaan oo idin sheegaya soo madaxweyne ku-xigeenkii mihi isma hayaan ka seexda ismana qaban doonaan haddana isma hayaan waa ballan baan idin qaaday waxa weeye waxa jira Soomaalidu waxay ku mahmaadaan laba dhaxal isku haysta maxay isu yihiin lama yiraahdo moogta waa walaalo waa aabahooda dhintay ama hooyada dhaxalkii bay isku haystaan anigu 5 kun baan leeyahay iyo malheeda 6 kun baad leeyahay iyo 7 kun buu leeyahay iyo intaas oo halaad buu leeyahay waxa aad maqasheen waa intaa horta waarintaasaan leeyahay iyo malheed iyo intaa qaado iyo waa xisaabtana dee waxa weeye xisaab xilma leh xisaabtu waa bannaan tahay maaha colaad iyadana intaasaan idiin sheegayaa farmaajo iyo dani isma hayaan aniga iyo prime ministerku isma hayno wasiirada iyo maxay tahay baarlamaanku isma hayaan ismana qaban karaano waa ka cabanaynaa runtii waa laga cabanayaa federaalka farmaajaanu ka cabanaynaa kii ka horeeyay Sheikh Xasan baan ka cabanaynay Sheikh Shariif baa laga cabanayay waayo
sida aad la socotaan Puntland waa hooyadii federaalka. Puntland baa geysay federaalka dawladnimada meesha la yiraahdo xamar. inama badan iyo hanti badan baa ku baxday, waqti badan baa ku baxay. marka waxay Puntland ku cabataa filaysay inay loo cawl celiyo oo wixii magaranaysa ay mudnayd la siiyo. waa cabatin colaad maaha runtii, taasaan idiin sheegaya. arrinkaa isaga ah intaasaan kaga baxayaa. waxaad ku caloolfayoobataan inaanay isqaban, ishayn, isna qaban karin, isna qaban doonin. waa dowladeennii federaalka ahayd. madaxweyne farmaajo waa madaxweyne Soomaaliya. in badan baynu soo maray kala daadsanaan iyo dowlad la'aan. kuma cid uma ogolaanayno cid ku cayaarta. Puntlandna xaasha kuma cayaari karto. waayo iyadaa hawl badni kaga baxday oo dhaqaale badni kaga baxay oo nafo badni kaga baxday. marka hooyadii federaalka hadday tahay dee hooyadii ilmaheeda ma tuuri karto, mar qura ma tuuri karto, laakiin waa canaanan kartaa, waa dharbaxsan kartaa, waa fadhi bari kartaa, waa hagaajin kartaa, waa la xisaab, waa u manna sheegan kartaa markay koriso. taasi intaa weeye. dhalinyarada halkan ay u badan hadda community-ga kan ama isu timi runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waxaanu ninkii gabyayey maxay tahay ninkii la odhan jiray abwaanadii Sharmaarke iyo Guray ayaa intaan odhan lahaa yidhi intaasaan ku raacsanahay. waxa weeye wixii joogow waxbarta, shaqaysta, iscaawiya, Soomaali ahaada, walaal ahaada. haddii aad ku sheegina u sheegina war xun kuwaas tahriib min fadlakum ha u sheegina. waayo hablaheennii dhalinyaradeenni waa arkaysaan marka sawirada meelahaas aad ka aragtaan iimaan laawihii magafe iyo waxa uu ku samaynayo. marka ma aqaan waxaas majinbaa maysiba magafe muxuu yahay daduu kaga cabaadinaya arkaa sida neef la dhufaanayo ama la gowracayo. marka haddii ilaahay idinka soo nabadgeliyey waxa weeye idinkuna noloshiina halkan ka shaqeeya, waxbarta, shaqaysta, kuwaana ha soo lugoynina. aad iyo aad baan maxay tahay ugu faraxsanahay sida aad isugu xidhantihiin. Puntland runtii Puntland in badan bay jirtay, waa run waxyaaba waa ka dhiman yihiin, laakiin wixii waxqabad ahaa waxaa idiin sheegay jananka waxaa iyo wax ka badanba runtii waanu qabanay oo muddo yar ku qabanay. weliba waana yar tahay, waad noo dulqaadanaysaa. sanad maanu gaadhin, waa 8 bilood iyo meelaha 9. tan waaba 9 wax ku darinaya. tii January-na waa tii aan nala doortay aan ku darin, waa 7 bilood iyo waxaan dhaamin. marka taa iyada ah waanu qabanaynaa, waxna waa qabanay, waxna wixii noo dhimanna waa dadaalna waa qaban doonaa haddii la yidhi. xoreynta waxaa la yidhi Jabuuti berigii la xoreynayey xornimada qaadanaysay baa ninkii la odhan jiray xasan guuled absidoon iyo odayaal shuu ka mid ahaa ee gobonimo doonkii xasan baa wuxuu yidhi baa la yidhi allah u naxariistee Jabuuti waa imanaysaa buu yidhi. marka laascaanood iyo sool waa imanayaan. Puntland bay yihiin. Puntland waa ku soo darsamayaan. waa idinku bishaaraynaya taa. waayo waa qayb Puntland ka mid ah. cidna lagu xumayn maayo, ma qarsanayno, cid wax ugu dhimi mayno. waa dal ka mid ah Puntland, waana iman doonaa haddii la yidhi. waa la xoreynayaa, waana ku soo darsami doontaa dhaqso, si dhaqsaa weliba. waa haddii alla yidhi. taasi taa weeye. waan ognahay community-gu dee way isku xidhan yihiin, laakiin ma kala kacayn karto. wixii markaad xaqaaga sheegto, waxaaga sheegato, cid kuma xumaynaysid moogta. marka way taa iyadana halkaas baan kaga talagelaynaa. aan maxay tahay idinku bushaaraynayaa. waxaan kale idiin sheegayaa gudaheeda Puntland gudaheeda dhibaato kama jirto. waxyaabaha maxay tahay haddaad maqasheen xoogaana waa wax la saxayo, waa la dadaalayaa.
ninkii gabyayey odayga ahaa maxay tahay guray mushaharka iyo waxa waa la bixiyaa waa ogtaado tii hore aan ka mid ahaa waa dhaanaa runtii markaad eegto tii hore cabdiwelina ka mid baan ahaa tii faroolana ka mid baan ahaa marka labadiiba waxaad moodaa inaanu ka roonnahay waa ku dadaalna mushaharka bal at least in mushaharka nimanka askarta ah iyo shaqaalahaas dadka dhiban inay helaan wasiirada iyo baarlamaanka iyo haba waayeen haday doonaan laakiin mushaharka waad la socotaano waxaan u malaynayaa in bil walba la helo hadda bil walba waa la helaa sida aan ka warqabo waxaanu ku dadaalnaa inay ka sii wanaagsanaato oo waxaa hadda marmar baa bildaaf bilba lagu amaahdaa macnihii laakiin waxaan ku dadaalaynaa in bil walba joogto loo helo oo waliba 25keeda la helo iyadaan dhammaan xagga mushaharka saas weeye isku tashiga iyo maxay tahay waxqabadka dawladda waa tii uu idiin sheegay jaranku intaas waa la qabtay in ka badanna waa la qaban doonaa haddii alla yidhi waxaanu idinka idiin sheegaynaa in la isku xidhmo dibadda iyo guduhu inay isku xidhmaan inaad idinku ka wargeysaan war fiican aad u tabisaan odayaashii iyo waalidkii aad ka timaadeen inaad wax tartaan haddaad shaqaystaan haddaad wax baranaysaan labadaba inaad maxay tahay ka warqabtaan inaad u sheegtaan idinkaa berri maxaa la odhan jiray dhallinyaradii u soo kacaysay dalka idinkaa ah waad maqasheen oo waad la socotaan idinkaaba noo qareeyo ninkii gabayay hadda dhallinyarada dawladda tan hadda uu dani madaxda ka yahay madaxweyne ku-xigeenka akaay dhallinyaro u badan tahay odayaashii hore daadayda ahaan iyo khaliif iyo daadayda ahaa waaba nagu maagaan waxay ahaan waa dawlad dhallinyare maxay tarayaan marka dhallinyarada runtii firfircoon sida uu sheegayay jaranku qaar baa maxay tahay buuhoodle hadda maanta dad badan baa jira mar waxaan arkaynaa iyagoo xamaaraya maaqan haddaad meelaan ku aragteen bahalka jawaana tuurta ku sida wasiiradii ya raashin macaawimo ah u qaybinaya dadka marna waxaan arkay iyagoo bardaloola sita BKM marka dhalinyaro u badan yihiin wakiil walba waa gelayaan mar waxay fuulayaan xaajada dusheeda baabuurta dusheeda ay fuulayaan marka aad iyo aad baad u mahadsantiin way idinku dheereeyay hadalka waxa iga keenaya uun maxay tahay inaan waqti idinla qaato idinla farxo waad faraxsantihiin sida aad noo soo dhaweyseen sida aad noo jeceshihiin sida aad maxay tahay noogu niyad wanaagsantiin sidaas leeg baanu anana idinku niyad wanaagsannahay idinku faraxsannahay ma sha Allah waa idinka wargeynaa in dawladdu ay timaado dhulka soo marto idinka iyo qeyrkiinba ay marmaraan iskiin baraan aad barataan idinla shiraan haddii abakoraya idinka qaadaan wixii ninba wuxuu yidhi amaanan axmed arag markaan tago meesha kumu ahaa meesha markaan tago garowo kale waad arkaysaa adigoo hadmiya waa ballan weeye haddii alla haddii ilaahay nafta inoo daayo waad arkaysaa cidi ima arki weydo aniga sidayda marka hore laakiin haddiiba wax dhacaan khaliif baa jooga ninka la yidhaaho wakiilka ayaad maxay tahay la soo hadli oo maxay tahay ii sheegi oo maxay tahay hebel baa ku imanaya nin dawliya baad noqonaysaa haddii aad yidhi waxaan iyana aad iyo aad u salaamayaa jaranka aad baan u salaamayaa waxaan la qabaa in hay tahay jaranka khaliif in ilaahay caafimaadka iyo cimri dheer siiyo waxa la inooga baahan yahay sidaas oo kale inuu qofku sharaf Soomaalnimadu qofku sharaf ku yeeshaa moogta laakiin gobol hebel iyo meel baan ka yimid qabiilada iyo sharaf male runtii aad iyo aad baad mahadsantiin waxaan isku salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad salaamta islaamkan isku salaamaya wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa mahadsantiin